بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaanteena waxaan ku riyoonaa inaan yeelano shakhsiyad dhinac walba ka dhisan inaan noqono kuwa lagu daydo kartidooda akhlaaqdooda muuqaalkooda wanaagsan xirfadooda iyo sida dadka ula dhaqmaan laakiin in la noqdo qof dhinac walba ka dhisan ma aan wax sahlan inaad noqoto qof dhinac walba ka wanaagsan waxay u baahan tahay inaad barato naftaada ogaato awoodahaaga gaarka ah ogaato meelaha aad ka liidato kadibna aad ku dadaasho inaad horumariso maalin kasta sidoo kale inaad samaysato ahdaaf noloshaada kor u qaadaya insha Allah muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa sidaad u noqon karto qof dhinac walba ka dhisan adigoo isticmaalaya ama raacaya 7 qodob oo aad muhiim u ah qaybta dambe ee muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa talooyin ka caawinaya inaad barato sida loo dhiso naftaada loo hagaajiyo dabeecadahaaga iyo sidaad ugu noolaan lahayd nolol isku dheelitiran oo guul iyo farxad leh intaan 7 qodob aan bilaabin marka hore aan isla fahanno maxaa laga wadaa qof dhinac walba ka dhisan markaan dhahno qof dhinac walba ka dhisan waxaa laga wadaa qof leh ruux degan oo Rabbi subxaanahu wa ta'ala ku xiran qof leh maskax furan oo wax cusub baran karta qof leh jir caafimaad qaba oo firfircoon qof gaaray madax banaani dhaqaale iyo qof leh xiriir bulsho wanaagsan inaad noqoto qof bulshada la xiriira intaas iyo in ka badan qofkii haysta ayaa la dhihi karaa waa qof dhinac walba ka dhisan markaan aan ku soo laabano 7 qodob ee muhiimka ah kuwaas oo ka caawin kara inaad noqoto qof dhan walba ka dhisan qodobka koowaad horumari maskaxdaada baro akhri fikir maskaxdaada waa keedka ugu weyn ee noloshaada haddii aad si joogto ah u horumarin maskaxdaada waxaad ku noolaan doontaa nolol dhib badan sidaa darteed maskaxdaada kori si ay kugu noqoto maskax horumarsan si aad maskaxdaada u koriso oo aad garaadkaaga u dhisto waxaad daruuriya inaad raacdo talaabooyinkan soo socda akhri buugaag ku horseedi kara fikrado cusub sida buugaagta businesska economicska leadershipka historyga iyo buugaagta ka hadla cilmi nafsiga dhageyso podcast faa'iido ku leh markaad firaaqada tahay baro xirfado cusub oo suuqa maanta loogu baahan yahay sida marketingka digitalka designinka communicationka iyo xirfadaha la midka ah qor fikradaha maskaxdaada ku cusub maalin walba ugu yaraan hal fikrad arrimahan oo dhan waxay dhisayaan maskaxdaada waxayna kor u qaadayaan garaadkaaga mid ogow qof aan wax akhrin heer ma gaaro dadka guuleysta maalintii ugu yaraan waxay u xaqin jireen 30 daqiiqo ka mid noqo dadkaas si aad naftaada u dhisto tusaale waxaa kugu filan qof aan gym aadin ama aan dhalmiinto samayn jirkiisa ma dhisan karaa jawaabta waa xaggiina sidaasoo kale qof aan wax akhrin maskaxdiisa ma dhisi karo wax akhriska badi si aad naftaada u dhisto qodobka labaad jirkaaga ku dadaal caafimaadkaaga waa shayga ugu qaalisan caafimaadka wanaagsan ayaa ka muhiimsan lacagta badan carabta waxay ku maamahdaa alcaqlu saliim fi ljismi saliim caqliga wanaagsan wuxuu ku jiraa jirka wanaagsan jirka caafimaadka qaba sidaa darteed cuno nafaqo leh khudaarta miraha brotiinka waxaadna cabtaa biyo badan jimicsi sameey orod socod dheer ama 20 daqiiqo jimicsi guriga joogtaa ku sameey seexo maalintii 7 saac ama 8 saac si maskaxdaada ay u nasato maalinta xigtana aad firfircoon u dareento ka fogow waxyaabaha caafimaadkaaga dhaabici kara sida sigaarka maanduriyaha cunooyinka ku badan sokorta cunooyinka ku badan dufanka iyo waxyaabaha la midka jirka caafimaadka qaba wuxuu ku ogolaanayaa inaad hesho tamar badan iyo hufnaan shaqo marka uu jirkaaga caafimaad qabo waxaad qaban kartaa shaqo walba aad u baahan tahay qodobka saddexaad nafsadaada kor u qaad ruuxadaada Rabbi subxaanahu wa ta'ala ku xir qofka dhinac walba ka dhisan waa midka ruuxadiisa daryeela binaadamka wuxuu ka kooban yahay jismi iyo ruux jismiga waan aragnaa waana naqaanaa wax lagu daryeelo laakiin ruuxada maxaa lagu daryeelaa binaadamka ruuxiisa muxuu ku daryeeli karaa si aad u daryeesho ruuxadaada ku xirnow Rabbi subxaanahu wa ta'ala si aad u hesho xasilooni nafsaani ah akhri quraanka kariimka quraanka waa kalaamullaahi haddii aad akhrido waxaad ka helaysaa xasilooni iyo farxad aan la soo koobi karin salaada jaamacada ku duko sadaqada baxso dadka iska cafi marka dadka cafiso waxaad dareemaysaa raaxo غير caadi ah u fiirso midka dadka iska cafiya iyo midka cugdada badan ee dadka iska cafin keebaa horumar gaara keebaa dareema raaxatu nafsi dabcan qofka dadka iska cafiya ayaan wax cugdada qalbigiisa ku jirin naftaada muraaqabay ama naftaada control maalin kasta maxay saxday maxay qaladay jadwalka ay degsatay si sax ah u dabaqday
waa maxay waxay maanta qabatay loona baahan yahay beri inay si ka wanaagsan si maanta ay u qabatay u qabato. markaad naftaada xoogga saarto ood rabbi subxaanahu wa tacaala ku xirnaato waxaad dareemaysaa xasilooni, waxaadna noqonaysaa qofka ugu farxadda badan dunida. qodobka afraad, dhaqaalahaaga xooji. madax bannaani dhaqaale waa muhiim si aad u hesho xorriyad noloshaada ku dhisan. nafsadaada bar sida lacagta loo maamulo, miisaaniyad samayso, kharashka muhiimka ah iyo midkaan muhiimka ahayn kala saar oo kala sooc. samay kayd bil kasta, xitaa wax yar ha ahaadaan. lacagtaad kaysatay ka fikir meelaha aad ku maalgelin karto si aad mustaqbalka u gaarto xorriyad dhaqaale. baro xirfado aad si madax bannaan ugu shaqaysan karto. ugu dambeyn, lacagta ka dhig adeegahaaga ee ha ka dhigan sayidkaaga. micnaha lacagtaada iyada ha kuu shaqayso ee adiga lacag darteed ha u shaqayn. qodobka shanaad, bini'aadamnimadaada dhis. xiriirka aad dadka la leedahayna hagaaji. dadka ula xiriir si kala gacayl iyo ixtiraam leh. dhagayso marka uu qof kula hadlayo, hana ka tegin qofkaas ilaa uu hadalkiisa ka dhammaysto. kadibna si wanaagsan ugu jawaab waxa uu ku weydiiyey, una dholo cadday. nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga jaliilka ahaa abidar wuxuu ka soo wariyey xadiiskii ahaa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam tabassumuka fii wajhi akhiika sadaqa. inaad walaalkaaga u dholo caddayso waa sadaqo. marka waa jaanis adigoon waxba bixin wax sadaqayso. dadka ku dhiirigeli wanaagga oo u sheeg mar walba erayo wanaagsan. baro sida loo xaliyo khilaafaadka adigoon dhaawicin qofna. la xiriir dadka wanaagsan si aad wanaagga ugu barato. qodobka lixaad, si wanaagsan u maaray wakhtigaaga. wakhtiga wax walba asigaa ka qaalisan, sababtoo ah qof walba wuxuu fursad haystaa inta uu nool yahay. mar haddii aad dhimato wakhtigaaga halkaasuu ku eg yahay. sidaa darteed subaxii xilli hore soo kac. markaad salaada subax jamaaca ku tukato, adkaartaada akhrisato, qur'aankaad akhrisato, samayso qorshe maalinla ah. kadibna bilow howlahaaga maalintii adigoo ka bilaabaya kuwa ugu muhiimsan. ka fogow wakhti lumiska badan. qorshay xilliyada nasashada, shaqada, jimicsiga, cibaadada iyo waxbarashada si aad wakhtigaaga isugu dheelitirto. waxaad ogaataa dadka wakhtigooda si saxa u maareeya waa kuwa u dhow guusha. qodobka toddobaad, ha joojin horumarka. noqo qof aan weligiisa joogsan. horumarka waa socod aan dhammaad lahayn. mar walba naftaada weydii, maxaan maanta ku kordhin karaa maskaxdayda, dhaqankayga, xirfadahayga, dhaqaalahayga, maxaan ku kordhin karaa? ku dadaal inaad wax kordhiso maalin kasta. aqbal inaad u baahan tahay inaad wax barato maalin kasta. nafsadaada aysan ku sirin. waxbarashada ma ahan wax meel ku eg. maalin walba wax cusub baro. ku celceli gaarista hadafkaaga. hana ka baqin inaad guuldaraysato, sababtoo ah guuldarooyinka waa towbaraha qarsoon ee guusha. talo muhiim ah, mid weligaa maskaxdaada ku hay. qofka joogsada dib ayuu u noqdaa, qofka socdaa wuu horumaraa. mar walba xusuuso taladan, haddii aad joogsato dib ayaad u noqonaysaa, laakiin haddii aad socoto waad horumaraysaa. waxaadna gaaraysaa ahdaafta aad degsatay. waxaan isla soo gaarnay gebgabadii mawduuceena. qofka dhinac walba ka dhisan waa qof go'aansada inuu rabbi subxaanahu wa tacaala ku xirnaado, isbeddel sameeyo, nafsadiisa maamulo, barto waxa uusan ka saynin, ku dhaqmo waxa uu bartay, ka faa'iidaysto dadka waxa yaqaana, mar walbana isku daya inuu nafsadiisa horumariyo. muuqaalkeena maanta waxaan ku soo xirayaa aaya min aayaatillaahi alkariim. qaala allahu tacaala wamaa tawfiiqii ilaa billaah calayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib. suuratu huud aayadda 88. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.